musharax Khaliif Ciise Mudan oo kamid ah musharaxiinta u taagan inay u tartamaan jagada madaxweynenimada Puntland doorashada soo socota 2019 ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland waxa warkaas nooga soo diray Garowe Cabdifataax Cabdullaahi boqolaal dadweynaha oo isugu jira dhalinyaro ururada haweenka ardayda jaamacadaha bahda sportiska ayaa subaxnimada hore ee saaka isugu soo baxay jidka Sodonka ee magaalada Garowe ujeedada isu soo baxa dadweynahan ayaa ahayd inay deegaanka 22 oo dhaca bariga Garowe ay kaga qayb galaan soo dhaweynta musharax madaxweynaha Puntland 2019 General Khaliif Ciise Mudan dadweynaha way ka muuqatay soo dhaweyntooda inay u wehelisay farxad iyo reyn ayaa isugu tagay goobtii ay ku soo dhaweynayeen Khaliif Ciise Mudan oo safar dhulka ah ku soo maray deegaanada u dhaxeeya magaalooyinka Qardho iyo Garowe waxaana dareenkoodu uu ahaa intaasi kadibna waxa murashaxa iyo wafdigu uu hogaaminayay loo soo gudbiyay gudaha magaalada ilkajiira oo xilal kala duwan ka soo qabtay Puntland kana mid ahaa wafdigu uu hogaaminayay mudane Khaliif Ciise Mudan ayaa ugu horeyn shacabka kula hadlay barxadda weyn ee Garowe musharax madaxweynaha Puntland Khaliif Ciise Mudan waxa uu qaybaha shacabka uga mahad celiyay soo dhaweynta qiimaha badan isagoo sheegay in uu u hiilin doono shacabka Puntland intaasi kadib waxa musharaxay wafdigu hogaaminayay munaasabad qada sharaf ah loogu sameeyay goobta dalxiiska Hidaraac waxaana halkaasi uu kula hadlay boqolaal dadweynaha oo ka soo qayb galay munaasabadaasi dadkii soo abaabulay xafladan qiimaha iyo qaayaha leh oo waqtiga badan galiyay waxaan u mahad celinayaa dadkii nagu soo dhaweeyay ilaa iyo meel u jirta magaalada 20 kilomitir ilaa iyo magaalada dhexdeeda waxaan u mahad celinayaa saraakiisha hortayda fadhiya oo qiimo aad u culus ugu fadhida dalkan iyo dadka waa dadkii dhaliyay Puntland waa dadkii difaacay Puntland waa dadkii u taagnaa ilaa hadda inay difaaceeda sameeyaan ما سهل نبالكود لكن وعليا إن شاء الله وحيا حدودهن وعلى صوقري إلى إذن كيس وحروبيان هدي حروباننا وكفر عضينا مرضى بيننا يفرب بهن وحان ودسينا إلى إذن كيس إذن aqoon iyo khibrad leh oo awoodooda technical ay fiican tahay oo tababar fiican leh oo daryeel fiican hela oo noloshooda laga fikiro oo dhaawacooda meel markiiba la geeyo uu leeyahay oo aan laga harin oo agoontooda aan laga harin oo loo sameeyo iskoolo iyo meel ay seexdaan iyo raashin fiican oo la siiyo laga warqabo dawladda mas'uuliyadda ay qaado ay ka mas'uul tahay يوصل المهن عبيس دقال كيف كنت انت اسكول ما دكتو ان شاء الله ما دعيس مرضى حدودها هنا سوينا لو باهي سياسة دقيس كافريكا اسبدل باكجرة اسبدل كاسر العيب المصابين يا وحنا وبا عنا إن النهارده بنتلان هان سياسة سليمة وشيسا وطلابين للرعالة واستراتيجي لنا نسميسنو وكل دغنو دلكينا iyo dadkeena kadibna aynu kula dhaqanno dawladda Soomaaliya oo dawladdii Soomaaliya waddanka dhan xukuntay ah inaanu kula dhaqanno waxa laga maarmaana waxyaalaha jira khilaafaad ka dhaxeeya dawladdeena iyo dawladda sare
waxaasuna waxay ku imaanayaan waa wada hadal la'aan iyo fikir la'aan waxay u baahan yihiin wixii jira in laga wada hadlo wixii qolo walba ku qaldan tahay inay wax qaadato Cabdi Fataax Cabdullaahi wararka TV-ga caalamiga ee Som News Garowe